barnaamijkan waa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe. dabcan intiina la socotay barnaamij toos ah ayaynu dhanka youtube-ka kaga jirnay oo ilaa iyo 2 saac ugu dambeeyey. laakiin barnaamijkan waxaan kusoo koobaynaa si kooban waxa socda iyo xaaladdu halka ay marayso. in xoogan ayaa lagu qaaday waddanka Iran magaalooyin badan oo kamid ah oo ay kamid tahay magaalada Tehran. waxaana duqeyntan wadajir u fuliyey Mareykanka iyo Israa'iil. waxaana lagu soo waramayaa in Iran kadibna ay bilowday duqeymo culus oo ay ku qaaday Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe. waxaa si rasmi ah loo xaqiijiyey in la duqeeyey saldhigga Al-Udeyd ee ku yaala waddanka Qatar ahna saldhigga ugu weyn ee Mareykanku uu ku leeyahay waddankaasi. sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in la weeraray xarunta taliska shanaad ee ciidamada Mareykanka ee ku taal waddanka Bahrain. magaalada Manama ayaa sidoo kale qaraxyo waaweyn laga maqlay. magaalada Abu Dhabi iyo magaalada Dubai ee waddanka Imaaraadka Carabta duqeyn ayaa sidoo kale Iran ay la beegsatay. ugu yaraan 1 qof ayaa la xaqiijiyey in uu ku geeriyooday duqeymihii ugu dambeeyey ee dhacay. sidoo kale Kuwait ayaa kamid ah meelaha la beegsaday. Jordan waa la duqeeyey, sidoo kale Qatar waa la duqeeyey. waxaa kaloo la duqeeyey magaalada Riyadh ee waddanka Sacuudiga. Israa'iil magaalooyin badan ayaa la duqeeyey. waxaa kamid ah magaalada Qudusta la haysto. waxaa kaloo la duqeeyey magaalada Ashkelon ama Casqalaan magaalada Qudus. sidoo kale waxaa kaloo la duqeeyey Tel Aviv, Haifa, waqooyiga Israa'iil sidoo kale waa la duqeeyey. magaalooyin fara badan ayaa la duqeeyey. dagaalkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ku sheegay inuu yahay wasiir dalka u dhigay mid lagu doonayo in dadka reer Iran ay xukunkooda iyo maamulkooda iyagu ay yeeshaan, meeshan laga saaro sida uu yiri maamulka argagixisada ee waddanka Iran. wuxuu kaloo tilmaamay in ay tahay ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran inay hub ka dhigaan. arrintaas waxay noqotay runtii arrin la yaab leh iyo jawaabta Iran ay bixisay mar alaali markuu dhameeyay hadalkiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. sidoo kale waxaa isna hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. wuxuu sheegay in ay bilaabeen howlgal wadajir ah isla markaasina u mahadcelinayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dagaalkan uu ka qayb qaatay. ilaa iyo hadda macluumaadka dagaalkan laga hayo wuxuu xaqiijinayaa Iran in lagu qaaday ilaa iyo 50 weerar. duqeymaha qaarkood hadda way socdaan. xilligan oo barnaamijka aynu wadno magaalada Tehran duqeyn ayaa lagu hayaa. maxaa laga ogyahay xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Iran? mas-uul sare oo ka tirsan dowladda waddanka Iran ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha waddanka Iran Mas'ud Pezeshkian iyo wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi labaduba ay wanaagsan yihiin oo ay fiican yihiin. shabakadda Axios ee laga leeyahay Mareykanka waxay tibinaysaa iyadoo soo xiganaysa mas-uuliyiin Israa'iiliyiin ah in ujeedka weerarka u ahaa ayna qayb ka ahayd in la beegsado hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka Iran Mas'ud Pezeshkian. waxaana Iran ilaa hadda laga sheegayaa dhankooda in weeraradan aysan waxba yeelin madaxweynaha, laakiin ilaa hadda kamaysan hadlin Iiraaniyiintu hogaamiyaha sare ee Iran. taliska ciidamada Israa'iil war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in la beegsaday saraakiil sarsare oo ka mid ah ciidamada iyo hoggaanka siyaasadda ee waddanka Iran sida hadalka loo dhigay. laakiin ilaa hadda lama xaqiijin karo warkan dhanka Israa'iil ka soo baxay xaqiiqnimadiisa ama sida uu dhab u yahay, bacdima uu yahay war dhinac ka yimid. ila madax banaan kama hayno. dhanka Iran waxaa iyaguna goor dhaweyta war soo saaray taliska ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ee loo yaqaano IRGC. waxay xaqiijiyeen inay biloween howlgalkii la magac baxay ballanqaadka dhabta ah qaybtii 4. waxaan ay sheegeen in diyaarado fara badan oo drones ah iyo gantaallo ay qayb ka yihiin weerarkan. waxaana lagu soo waramayaa sidoo kale in duulaankan uu noqonayo mid aad u ballaaran. Israa'iil waxaa lagaga dhawaaqay hadda intaynu barnaamijka ku jirnay in loo yeelay ciidamo aad u fara badan oo ah kuwa kaydka. wadamo fara badan oo ku yaala gobolka ayay Iran duqaysay, gaar ahaan saldhigyada Mareykanka ha noqoto waddanka Imaaraadka Carabta, Kuwait, Bahrain, Sacuudiga, Qatar iyo sidoo kale Jordan. waxaana sidoo kale la sheegayaa in la xiray hawada diyaaradaha ee wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabta iyo Bahrain
iyo sidoo kale Kuwait. wakaaladda wararka waddanka Iiraan ISNA ayaa waxay sheegaysaa in wasiirka arrimaha dibadda waddanka Iiraan Cabbaas Araaqji uu caafimaad qabo isla markaasna aysan jirin wax dhibaato ah oo soo gaaray. Maraykanku weerarka Maraykanku uu qaaday wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Iiraan waxay ku tilmaamtay inuu yahay weerar sharci darro ah isla markaasna dhammaanba saldhigyadii laga soo qaaday weerarkan Iiraan ay beegsan doonto oo sharci ay tahay in ay beegsato. arrimaha kale ee soo baxaya waxaa ka mid ah in la weeraray xarunta ciidamada ama maleeshiyaadka shiicada ee Ciraaq ee ku tal koonfurta magaalada Baghdad. war ka soo baxay ciidankan oo lagu magacaabo BMF waxay sheegeen in 2 qof lagu dilay duqeynta lagu qaaday xaruntooda, 3 qofna ay ku dhaawacmeen. Imaaraadka Carabtu war ay soo saareen waxay ku sheegeen in ay diyaar u yihiin inay jawaab ka bixiyaan weerarka lagu soo qaaday. tani ma waxay qayb ka noqon kartaa in Imaaraadka Carabtu uu ku biirayo dagaalkan. wahagaag waxayna kaloo wararka ka mid ah meelaha la duqeeyey Israa'iil waxaa ka mid ah magaalada Haifa ayaa soo kale la duqeeyey, magaalada Qudus waa la duqeeyey, weli waxaa la sheegayaa waqooyiga Israa'iil dhisme ka kooban 9 dabaq in la weeraray. khasaare ayaa jira ayaa la leeyahay dhanka Israa'iil sida wararku ay sheegayaan. magaalada Haifa ayaa sidoo kale la xaqiijiyey in lala eegtay duqeymo. waxaa kaloo soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira dhanka Maraykanka. telefishinka la yiraahdo Fox News ayaa hadda wuxuu ka soo xigtay sarkaal Maraykan oo sheegaya in saldhigga Maraykanka ee Bahrain ku yaal duqeynta lala eegtay aysan jirin wax khasaare ah oo ka soo gaaray Maraykanka ciidamadiisa. warkaas waa war dhanka Maraykanka ka soo baxay, laakiin saldhigyada kale lagama hadlin. waxaa la yiri saldhigga Bahrain weli khasaare ma jiro soo gaaray ciidanka Maraykanka. saldhigyada kale laakiin lama xusin. maxay tahay marka sababta loo xusi waayay saldhigyada kale? waynu arki doonaa. Iiraan waxay wacad ku martay in dagaalka ay sii wadi doonto, waxaana ay sheegtay Iiraan dagaalkan Maraykanka Israa'iil ayaa bilaabay, laakiin Maraykanka iyo Israa'iil ma joojin doonaan. go'aanka lagu joojinayna dagaalkan ma yeelanayaan. waxaa kaloo la xaqiijiyey ciidamada la yiraahdo Basiij oo ah ciidamo aad u fara badan oo kumaan kuna oo Iiraan ay leedahay, ahna ciidamada ismidaamiya in loo diray galbeedka waddanka Ciraaq, raalli ahaada galbeedka waddanka Iiraan, taasi oo ka turjumaysa suurtagalnimada in ciidamo dhulka ah laga yaabo Maraykanka iyo Israa'iil in ay u soo diraan Iiraan. waxaa leeyahay taa laftigeeda waxay noqon kartaa halis aad u ballaaran. maxaa yeelay waa la ogsoon yahay ilaa 150,000 oo ciidamada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa u diyaarsan howlgal ay fuliyaan, taasi oo dhibaato ka dhigi karta in Maraykanka iyo ciidankiisa ay gudaha u soo galaan. wahagaag waxaan kaloo eegaynaa wararka ugu dambeeya hadda soo baxay ay sheegayaan in dhowr qarax laga maqlay magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada waddanka Sacuudiga, inkastoo wakaaladda wararka AFP ay tabinayso in aan lahayn ilaa hadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. waxaa kaloo wararka ka mid ah in xogaga Xuutiyiinta aysan ilaa hadda xaqiijin inay weerari doonaan maraakiibta, laakiin waxay sheegeen dagaalkan in aysan jirin meel ay walaabtaan, laakiin maysan xaqiijin ilaa hadda inay weerari doonaan maraakiibta. marka ma waxay ku ekaan doonaan gantaalo inay ridaan? taa lama oga. marka warkaas wuxuu ka soo kordha waynu arki doonaa. wahagaag magaalada la yiraahdo Holon ee Israa'iil ku taal waxay u jirtaa 5 ilaa 10 daqiiqo gaari marka lagu socdo magaalada Tel Aviv. duqeyn ayaa ka dhacday, uuro xoog leh ayaana cirka isqabsatay. magaalooyin kale oo ka mid ah Israa'iil ayaa la duqeeyey, waxaana ka mid ah meelaha la duqeeyey Israa'iil saldhigga militariga ee Navatim la yiraahdo. saldhigga Navatim waa saldhigga ay ka soo kacaan diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ee F-35 iyo sidoo kale kuwa Israa'iil. waxaa maalmihii ugu dambeeyey la keenay Israa'iil diyaarado aad u fara badan oo Maraykanku uu leeyahay, gaar ahaan kuwa F-22 iyo F-35. saldhigga Navatimna waa la duqeeyey. waxaa kaloo la duqeeyey Dimuna waa meel u dhow Beershacba, waana xarunta nuclearka ee Israa'iil. waxyeelada gaartay lama oga. waxaa muuqanaysa dhanka Israa'iil in la isku dayayo in warkan aad loo qariyo, laakiin
macluumaadkan waa macluumaadada ugu dambeeya ee hadda soo baxaya xaaladan waxay u muuqataa dagaal faraha ka baxay meel walba oo ka mid a gobolka bariga dhexe magaalooyinka seeriga digninta ka bixiya gantaalada ayaa laga maqlayaa waxaana muuqanaya jahawareer weyn oo gobolka ka taagan ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wuxuu si cad u qiray in qorshahoodu uu yahay in meesha laga saaro hoggaanka sare ee waddanka Iiraan oo macnaha la afgembiyo dowladda kacaanka islaamiga ee waddankaasi Iiraan laakiin Iiraaniyiintu waxay leeyihiin annaguna waxaan qaadi doonaa duulaan aad u ballaaran duqeymo badan ayaa dhanka Israa'iil laga soo warinayaa in la eegtay magaalada Qudus ayaa xitaa ka mid ah magaalada Ramallah ee daanta galbeed ku taal ayaa ka mid ah meelaha duqeynta lala eegtay Iiraan waxay sheegaysaa in duqeyntu ay tahay mid aad iyo aad u xooggan isla markaasna diyaaradaha droniska iyo maraakiibta dagaalka la sheegayo inay qayb ka noqon doonaan waxaa kaloo muhiim ah sidoo kale Iiraan waxay sheegaysaa inay isticmaali doonto axdiga qaramada midoobay qodobkiisa 11aad oo dhigaya inay si adag uga jawaabto weerarka lagu soo qaaday waxaan ay sheegtay gantaallo fara badan iyo diyaaradaha droniska inay ku weerarayso Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka ee gobolka ku yaal waxay kaloo ka digtay xaaladdu inay faraha ka sii bixi doonto sidan waxa xaqiijiyay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Ismaaciil Bakhai Iiraan waxay si rasmi ugu dhawaaqday inay isticmaali doonto qodobka 11aad ee axdiga qaramada midoobay ee ah isdifaac xooggan inay samayn doonto qodobkaas ayay soo saartay ilaa iyo hadda waxaa si rasmi ah loo xaqiijiyay in la weeraray Bahrain Imaaraadka Carabta Sacuudiga Kuwait Iraq Jordan Israel intaaba waa la weeraray magaalooyin fara badan oo ku yaala waddanka Iiraan ayaa sidoo kale weeraro ballaaran lagu qaaday waxaa kaloo muuqanaya macluumaadyo kala duwan oo la xiriira weerarada lagu qaaday wadamadan oo lagu soo warramayo in Iiraan ay sheegayso inay weeraro kale sii wadi doonto dagaalkana laga yaabo inuu sii ballaarto xaaladdu waxay u eg tahay mid faraha ka sii baxaysa waa yahay Mareykanku waxay leeyihiin isku day waxaa jiray la doonay in lagu qaarajiyo Ayatollah Khamenei iyo madaxweyne Mas'uud Pezeshkian Mareykanka ayaa sheeganaya laakiin dhanka Iiraan ilaa hadda warkaas kama hayno dhanka Iiraan waxa laga xaqiijiyay oo kaliya in la weeraray guriga madaxweynihii hore ee waddanka Iiraan Mahmoud Ahmadinejad oo ku yaal deegaanka liirada Narmak ee magaalada Tehran duqeyn Mareykanka ay soo qaadeen ayaa gurigii Ahmadinejad lala eegtay waxaa kaloo soo baxay warar sheegaya sidoo kale in magaalada Hebron ee daanta galbeed ku taala dhulka Falastiiniinta ee la haysto duqeyn ay ka dhacday duqeynta badankeeda waxaa la xaqiijinayaa in hawada loo isticmaalay waddanka Ciraaq loo isticmaalay oo aysan jirin diyaarada Mareykanka iyo Israa'iil oo toos u galay hawada waddanka Iiraan ilaa iyo hadda Mareykanka iyo Israa'iil midna ma xaqiijin hawada ay isticmaaleen laakiin waxa loo badinayaa hawada Ciraaq iyo Syria inay tahay laakiin Iiraan sababta ay u weerartay wadamadan qaliishka ku yaal waxa dhici karta inay heshay xogta ah in laga soo weeraray goobahaasi waayo Iiraan waxay leedahay dhammaanba saldhigyadan ka soo weeraray ayaynu baagsanaynaa Imaaraadka Carabta waxay sheegeen inay ka jawaabi doonaan weerarka lagu soo qaaday taas ayaa waxa leeyahay waxay ka dhigi kartaa dagaalka Imaaraadka inuu ku biirayo arrintaas waxay noqon kartaa baa la yiri halis weyn oo xaaladda keeni karta Sacuudiga war ayaa hadda ka soo baxay Sacuudigu wasaaradda arrimaha dibadda waxay si adag u cambaaraysay weerarka lagu qaaday wadamada khaliijka waxaana la sheegay in ay tahay xadgudub Iiraan ay ku samaysay hawada wadamada Imaaraadka Carabta Bahrain Qatar iyo Jordan Sacuudigu wasaaradda arrimaha dibadda ma sheegin in ayaga la weeraray inkastoo magaalada Riyadh qaraxyo laga maqlay laakiin wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga waxay cambaaraynaysaa Iiraan weerarka ay ku qaaday Iiraan wadamada la yiraahdo Imaaraadka Carabta Bahrain Qatar iyo Jordan war hadda ka soo baxay dhanka Iiraan intaynu barnaamijka ku jirnay waxa la sheegayaa inay caafimaad qabaan dhammaanba hogaamiyaasha ciidamada militariga
arrimaha shakiga dhalin kara waxaa ka mid ah ilaa iyo hadda iiraaniyiintu ka hadli maayaan xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullahi cali khamenei arrintan maqadad baa mise wax kalaa jira ma ogin waa la xaqiijiyey inuu fiican yahay madaxweyne mascuud basajkiyan wasiirka arrimaha dibadda waa la xaqiijiyey laakiin lagama hadlin cali larajani iyo ayatullahi cali khamenei lagama hadlin caafimaadkooda dabcan way dhici karaan inay isbedelaan wax intaynu barnaamijka ku jirno amaba inta barnaamijka aynu markaynu soo gabagabayno dhanka iiraan qaraxyo waaweyn ayaa hadda waxaa laga maqlayaa waqooyiga galbeed gaar ahaan deegaanka la yidhahdo sanjan sida ay tabinayso wakaaladda wararka ee irna ee laga leeyahay waddanka iiraan macluumaadkan waa macluumaad ugu dambeeyey dhinac kale waxaa leeyahay koonfurta israa'iil gantaalo fara badan ayaa kusii socda diyaaradaha daroonkana way soo socdaan sida macluumaadka ugu dambeeya ay sheegayaan marka wararkan wuxuu ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo isha ku hay HBN qaybta Facebook iyo YouTube-ka oo hadiyo goolaale aynu ka gelayno si toos ah ama live aan uga tabinayno dabcan muuqaaladan waa muuqaaladii ugu dambeeyey duqeymo culus baa socda meel walba oo ka mid a gobolka bariga dhexe meel ammaana ma jirto marka waxay nagu soo kordha insha allahu tacaala barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka nabadgeli